munaasabad ballaaran oo ururka Haniya Hiigsi oo ah urur samafaleed isla markaana ay ku midoobeen xubno qurba joog ah oo ka soo jeeda gobolka Togdheer kana shaqeeya daryeelida dadka jilicsan iyo horumarinta magaalada Burco gobolka Togdheer ayaa qabtay munaasabada sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ururkaasi iyo waxyaabaha ay qabteen muddadaasi ay jireen waxaana sidoo kale abaal mariyeen shakhsiyaadkii qaybta lixaad kale kala qaatay mashaariicda horumarineed ee qabteen muddadaasi saddexda sano ay jireen munaasabada oo ka qabsoontay hoteelka Isha Burco ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer mas'uuliyiinta degmada Burco gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka xildhibaano mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer dhaqaatiir qurba joog iyo mudan kale lagu maamuusay munaasabadaasi waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahiyay waxyaabaha ay soo qabteen iyo ujeedka ururkani xogayaha guud ee ururka Haniya Hiigsi iyo sidoo kale xubno ka tirsan ururka oo ka soo kicitimay wadamada dibadda dhankoodana waxaa si weyn u bogaadiyay shaqadan ballaaran ee ururka Haniya Hiigsi ay ka qabteen magaalada Burco gobolka Togdheer dhaqaatiir xildhibaano qurba joog ganacsato mas'uuliyiinta degmada Burco iyo sidoo kale kuwa gobolka Togdheer ururka Haniya Hiigsi marka ugu horeysa waxa la aasaasay 2021 aasaaskiisa waxa ka dambeeyay xubno qurba jooga oo wadana kala duwan degan oo jooga ujeedooyinkii ugu weynaa ee loo aasaasay waxay ahaayeen in dadka qurbaha degan iyagu ay iskaashadaan ujeedooyinka ugu waaweyn ee loo aasaasay waxa ka mid ahaa in danta guud laga shaqeeyo khaasatan Somaliland oo dadkaasi ay ka soo jeedaan magaalada Burco danteeda guud in laga shaqeeyo oo ay ka wada shaqeeyaan sida inay dadka jilicda san taageeraan isbitaalada taageeraan ujeedooyinkiisa uu aasaasan yahay waxa ka mid ah wacyigelinta oo ay ugu weyn tahay dhisidda wadaniyada in dadka lagu wacyigeliyo oo laga dhiso la yiraahdo wadaniyada ee qodobka ugu weyn waxa weeye inay wax wada qabsi iyo qaadaan ururin ay yeeshaan waxa ay iskaashi weyn la leeyihiin dhammaan jaamacadaha ku yaala gobolka intii uu jiray ururka Haniya Hiigsi wuxuu fuliyay dhowr mashruuc oo ay ugu horeysay ama ugu ballaadhnayd inuu si weyn uga qayb qaatay dib u furidii riboodka Burco iyo dib u dhiskiisii ururka Haniya Hiigsi waxa uu mashaariic ka fuliyay isbitaalka guud ee Burco haday tahay qaybta meydka oo uu ku kordhiyay dhismayaal haday tahay ICU-ga isbitaalka Burco oo aanu hore u lahayn waxyaabaha uu wax ka qabtay waxa kamid ah inuu isbitaalka militariga u dhisay qaybta la yiraahdo theaterka qaliinka wuxuu caawiyaa masaajido wuxuu caawiyaa agoomo waxyaabo badan oo mashaariica ayuu ururka Haniya Hiigsi fuliyaa waxyaabaha aan soo sheegay ururka Haniya Hiigsi wuxuu u maraa nidaamka la yiraahdo iskaashiga iyo wax wada qabsiga ururkan wuxuu ka samaysmay qurbaha dadka qurba joogtana dhibaato aad u fara badan ayaa qurbaha ka haysata iyadoo nolosha adag ay taalo oo aan u baahannahay inaanu annagu wax wada qabsano oo dhulka aanu joogno dhul gaalaanu joognay aanu wuxuu qabana caruurtayada iyo hooyooyinka halka ku dhibaataysan ayaa haddana waxaanu mudnaanta koobaad siina wadankayaga iyo dadkayaga inaan wax ku celino annagu u baahan baanu doonaynaa inaan wadankayaga wax ku soo celino xoog haday tahay cilmi haday tahay dhaqaale haday tahay oo magaaladeedu markaanu nimaadno ayna soo jiidato quruxdeeda iyo bilicdeeduna soo jiitaa ururka waxaan doonaynaa inuu inta ka badan qabto inta in ka badan baynu higsanaynaa hambaliyo iyo bogaadin ayaanu soo jeedinayaa waxaanu ka warhaynaa intii aad jirteen wixii aad qabateen markhaati baanu ka nahay iminkana waxa idinka muuqata shucuur kulul oo wadaniyadeed oo aad doonaysaan inaad wax kala qabataan ayaa idinka muuqata ilaahay idinka abaal mariyo ururka muxsiniinta ee gobolka Togdheer ee Haniya Hiigsi oo aan leenahay jasaakallahu khayr ahsan jazaa we are OU1 abaal baan idinka haynaa hawsha qabateen ee gobolkiini iyo dadkiini u qabateen ururkan Haniya Hiigsi waxbay qabteen fara badan khayriya haday malcaamad tahay masaajid tahay muxuu ahaayeen caafimaad tahay masaakiin tahay agooma tahay marka waa la sheegay wax qabadkoodii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxay qabteen waana bogaadinayna waanu hambalyeynayna waxyaabaha taban ee wax weeyaan ururku ku hiigsaday oo qabtay magaalada ka qabtay qaybta gargaarka degdega ee isbitaalka Burco ICU-ga waxaan leeyahay ururka Haniya Hiigsi arintaas aad ku suntantiin maan Haniya Hiigsi waa ururada number 1 ka waa Somaliland baad isku dirto marka la eego gobolka Togdheer anigu kulleeba laba meelood ayaa nooga taageeroon labadaba aan ka shaqeeyay ka hor waa madaarka Burco ee maanta shaqeynaya $5,000 maalin walba u soo saaray dawladda dhexe iyo dawladda hoose midna waa halka meydka la dhigo
cusbitaalka marka wax la qabto ama aynu wax qabanayno aynu nidhaahno war waxan sidee maintenance-keeda halkee laga keenaya maanta talaagada meydka lagu riday 6 laguba baxsaday 6 meelood haddii fuse yari ka xumaado waa fuse yar ma hayno fuse waa fadhiisanaysaa aad iyo aad ayay u kala badan yihiin oo u kala tayo badan yihiin inta uu jiray muddadii uu jiray oo koobnayd iyo wuxuu qabtay waa wax aad iyo aad loogu daydo lagu farxo la dhiirigeliyo oo aynu ku garab istaagno ururka Hani Higsi waanu soo dhaweynaynaa ururka muddada koobnayd ee uu shaqaynayay iyo horumarka baaxadda leh ee bartan ay kaga warameen ee muddada kooban ay gaadheen runtii waa wax lagu farxo wuxuu taabtay ama uu focuska saaray muhiimadii halkii ay ahayd haday dhakhtar tahay haday airport tahay haday tahay agoomaha haday tahay dadka danyarta dhamaantood waana halka ugu muhiimsan ee bulshadu ay ugu muhiimsan tahay waxa la qabto waanu hambalyeynaa in badan dhalinyaro ku soo biirtay oo qurba jooga oo la yiraahdo wall and the back waxa ay bixiyeen 2600 markii la dhisayay muxuu ahaa cusbitaalka guud ayay ku darsadeen intaana waanu ducaynaynaa una duceeyeen dhalinyarada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cadowga ka qabto in dhalinyarada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo xeeyeen hanuuniyo ku soo hanuuniyo wadankooda inay wax ka fara badan u soo qabtaan marka ugu horeysa waxaan maxay u hambalyeeynaa Hani Higsi Ilaahay waxaan uga baryayaa inay noqdaan urur maxay ahaydeen aan maxay ahayd hore u socda Hani Higsi wax qabadkiisa iyo qiimaha uu gobolka ku leeyahay ma la soo koobi karo abaalka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka meel kasta oo baahi ka jirtay ama aad qurba ka dulqaadeen maalinta xagga rabbi la joogo wad helaysaan way ku ducaynaynaa waxaan ugu mahadnaqaynaa garab istaaga ay wasaaradda caafimaadka ay la garab taagan yihiin in ay horumariyaan dhammaan kaabayaasha caafimaadka haday noqoto cisbitaalka weyn iyo haday noqoto cisbitaalka militariga baahiyo badan ayaa loo qabay adeegyada ay ku soo kordhiyeen cisbitaalka weyn oo maanta diyaar ah in lagu shaqeeyo dhammaan dadka xanuunsan qaybta ICU-ga ah ururka Hani Higsi aad iyo aad baan u bogaadinayaa aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa dhammaan waxa ay gobolka ka qabteen iyo waxa ummadda u qabteenba waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa ururkan Hani Higsi sidoo kalena waxaan u hambalyeeynaa mulkiilaha hoteelkan Jaamac Maxamuud Aadan Hani Higsi ururkan horta waxyaabaha ugu muhiimsan oo aad uga qabtay waxa kamid ah meelaha danta guud oo ay ugu horeyso hospitaalka guud ee magaalada Burco marka kaalin muhiima ayay kaga jiraan ururkan Hani Higsi hospitaalka guud ee magaalada Burco waxay dhiseen in say ka dhawaajiyeen talaagada meydka oo macna arin muhiim ah oo ilaa 6 qaadayso oo waliba noocii ugu dambeeyay oo xitaa leyrka la kala baqtiin karo kolba 3 la shiri karo runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo wax qabadkooduna waa wax gobolka ka muuqday waana wax tusaale ugu filan wada jirka iyo wada shaqaynta dadka runtii waxaan halkan ka bogaadinayaa oo ka qirayaa runtii dadaalka iyo juhdiga ay keeneen oo geliyeen gobolka ururka Hani Higsi aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay 3 sanadood gudahood inay runtii projectiyada inta laga ay ku qabteen Hani Higsi hablaha iyaga sharafta leh ee namadayada qurbaha ka soo unkay ururkan ku dayashay mudan yihiin ururkaas hal la xoojiyo oo mataqaana lagu soo xidhmo waxa ay mataqaana u yihiin tusaale 3 sanadood iyaga jiray inay intaas project fuliyeen kii u dambeeyay anagu la furay wuxuu ahaa isbitaalkii xoogga Hani Higsi ururkan waa urur samafal ku talaabsaday mashaariic waaweyn muddadii yarayday jireen oo cimrigooda iyo camalkoodu kala wan yihiin waxaan leeyahay hambalyo waxaan halkan uga jeedinayaa hambalyo iyo bogaadin waxa qabateen wax lagu faano Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu miisaanka xasanaadkiina acmaasha qabateen idinku beeriyo waxaan leeyahay ururka Hani Higsi waxay inooga baahan yihiin 3 hal maanta koow inaan biiri gelino 2 inaynu ku dayno waxa wanaagsan ay qabanayaan oo kale in bulshada kalena ay qabato tusaale u yihiin in wax la qabsan karo 3 in la kaalmeeyo 3 inooga baahan yihiin sidoo kale kaysa aadan gudoomiyaha ururka isagana aan aad u bogaadinayo hal door badan baan ka aqaan oo qiimo badan oo aan shaqadan qura ee Hani Higsi ay qabteen shaqada aan ka bilaabin laakiin waxa horumar dalka ka dhacay qayb ka wada ahaa ururka Hani Higsi oo runtii
waxqabadkiisii iyo tacabkiisii iyo maskaxdiisii runtii muddada 3 sano ah uu jiray wixii uu qabtay oo wax la taaban karaa waxaan leenahay jazaakumullahu khayran ciddii ururkan asaastay maskaxdii ay ka soo maaxatay dadkii ku bixiyay dhaqaalaha inay bixiyaan waxaan ilaahay uga barayaa in maskaxdooda iyo muruqooda ilaahay u barakeeyo marqaanti waxaanu ka nahay hadaan nahay maamulka gobolka iyo degmada iyo shacabka reer Togdheerba Haniye Hiigsi muddadii uu jiray in wax la taaban karo oo runtii dan u ah bulshada waliba baahiyaadka asaasiga ah ay ugu horeeyaan caafimaadka inay wax weyn ka tareen gabagabadina waxay shahaado sharaf ku maamuseen shakhsiyaadkii qaybta lixaad kale kala qaatay mashaariicdan ballaaran ay ka qabteen magaalada Burco kuwaas oo shahaado sharaf iyo guddoonsiiyeen ayaa la cigay Ducaale Bukhari telefishinka Sahan Burco